Shumac dawladnimo ayaa halkan ka ifaya. Dadka ku nool degmadan oo muddo ku hoos noolaa gumaysiga argagixisada ayaa maanta dareemaya udgoon qarannimo. Awdhiigle waxay hadda leedahay weji ka duwan kii hore. Waxay higsanaysaa horumar ballaaran tan iyo markii ciidanka xoogga dalka ay xoreeyeen. Ka hor inta aan la xoreyn degmadan, kama jirin wax adeeg bulsho ah. Burbur xooggan oo ay u geysteen argagixisada ayaa ka muuqday. Dadka ku noolna waxay ahaayeen kuwo ku jira xabsi kor ka furan. Durba markii ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen degmadan, shaqadii ugu horeysay ay qabteen ayaa ahaa in loo istaago sidii loogu gurman lahaa bulshada Awdhiigle ku nool. waxaana dadaaladaasi horkacayay Gaashaanle Axmed Maslax Xuseen, taliyaha ururka 66aad ee guutada 14 Oktoobar. waxaa isku xirmay oo wada shaqayn wanaagsan yeeshay shacabka ku nool degmada Awdhiigle iyo ciidanka xoogga dalka, taasi oo keentay in argagixisada ay ku dhiiran waayaan in amni darro ay ka fuliyaan halkan. dadaalka ay muujiyeen ciidamada qalabka sida iyo maamulka degmada iyo shacabka degmada Awdhiigle oo iskaashanaya oo run ahaantii meel uga soo wada jeestay sidii ay isaga xoreyn lahaayeen cadawgii caburinta ku haystay, kaasi oo banaystay in uu hantidooda uu dhaco uu baado xoog kaga qaato iyo waxyaabo markaas iyaga dadka shacabka aan awoodooda ahayn inuu ku kallifo. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hirgelisay Awdhiigle iskuul si casri ah loo dhisay, goobo caafimaad iyo xarunta maamulka degmada, waxaana xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha degmada Awdhiigle ayaa sheegay in horumaradan la gaaray ay timid kadib dadaalka xooggan ee ciidanka xoogga dalka ay u galeen nabadeynta iyo isku xirka bulshada. waxaan aad ugu faraxsanahay mashaariidan oo horumarineed oo degmada laga fuliyay oo ah xaruntii maamulka iyo iskuulkii oo dayactir ballaaran lagu sameeyay. waan ku faraxsanahay anaga maamulka gobolka noola shaqeeyay. taliyaha ururka 66aad ee guutada 14 Oktoobar, Gaashaanle Axmed Maslax Xuseen, oo lafdhabar u ahaa guulahan laga gaaray dib u soo kabashada adeegyada bulshada ee Awdhiigle ayaa u mahadceliyay shacabka degmada ku nool oo uu sheegay in si dhow ay ula shaqeeyeen. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose run ahaantii waa uu ku amaanan yahay maamulka degmada Awdhiigle sidoo kale dhammaan shacabka degmada tan Awdhiigle iyadana ku nool mahataas lamida ayaan u jeedinaynaa sidii dhow ay noola shaqeeyaan, sida hagar la'aanta ay noola shaqeeyaan, sida walaaltinimada leh ay noola shaqeeyaan, run ahaantii ayna u dareemeen waxyaabaha ka maqan oo ah waxyaabihii noloshooda aasaasiga u ahaa. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa amaanay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Awdhiigle, isagoo shacabku ugu baaqay in caruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarasho ee dawladda ay u dhistay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dhiig iyo waqtiba ku bixiyay in mashaariicdan laga fuliyo degmada Awdhiigle oo dhib weyn ay runtii dawladda ay ka soo martay iyo shacabka iyo maamulkaba. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo shacabka reer Awdhiigle maadaama sanado fara badan nolol mugdi aad ku jirteen oo maanta aad haysataan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ah dhiigoodii waqtigooda inay idinku bixiyaan, maamul degmo diyaar u ah in habeenii maalin ay idin adeegaan, inay garab istaagaan maamulkooda, dowladooda iyo ciidankooda si adeegyadan bulshadan ay uga faa'iideystaan, ay u ilaashadaan adeegyadan bulshada halkan laga fuliyay. ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxay tahay dawladnimada in dadka la gaarsiiyo, fadhigoodana lagu gaaro. degmada Awdhiigle iyo deegaanada hoos yimaada ayaa dhanka kale waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka isla markaana lagu baacsanayo argagixisada baxsadka ah, waxaana howlgalladan horkacaya Gaashaanle Axmed Maslax Xuseen, isagoo inoo sheegay in cadowga tabarta daran meelaha ay ku dhuumanayaan loogu tagi doono. Cabdiraxmaan Maxamed, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida Awdhiigle.